ma ka mid tahay dadka cabay cabitaanka baawarka iyo nacnaca oo la isku daray haddii aadan ka mid ahayn nasiib ayaad leedahay waxaan kula wadaagi doonaa halista caafimaad ee ka dhalan karta haddii la isku daro cabitaanka baawarka iyo nacnaca maalmahani waxaa baraha bulshada Soomaalida ee ku kulanta ku soo batay dhalinyaro iska soo duubaya muuqaalo gaagaaban ay ku sheegayaan inay isku qasayaan cabitaanka loo yaqaano power drink iyo nacnaca afka qalad lagu dhaho mint candy oo ay Soomaalidu u taqaano nacnac kuleel si ay u cabaan natiijada ka soo baxda isku darka labadan shay ee kala duwan ayagoo aan ogeyn dhibaatada caafimaad ee ka dhalan karta sida darteed waxaan muuqaalkan kuula wadaagi doonaa baaris caafimaad oo ay sameeyeen dhaqaatiir Soomaaliyeed oo ku aadan halista ka dhalan karta haddii la isku daro labadan shay oo kala duwan balse marka hore waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like saartid share-na garaysid si dad fara badan u ogaadaan halista caafimaad ee ka dhalan karta haddii la isku qaso cabitaankan iyo sidoo kale nacnac kuleelka waxaan ku bilaabayaa waxyaabaha uu ka kooban yahay nacnac kuleelka waxaa ku jirta sokor waxaa sidoo kale ku jirta saliidaha loo yaqaano eucalyptus iyo sidoo kale peppermint oil waxaa sidoo kale ku jirta maadooyinka methyl crystals iyo flavors ama waxyaabo u yeelaya dhadhan iyo caraf oo aan ahayn mid sax ah oo artificial ah dhanka cabitaanka baawarka waxaa ku jirta maadooyin fara badan oo aad u badan laakiin waxaan ka soo qaadan karaa oo kaliya caffeine, taurine, vitamins B, guarana, antioxidants iyo mineralska loo yaqaano trace dhibaatada caafimaad ee ka dhalan karta haddii ay kulmaan labadan shay qofkii isku dara power drink iyo nacnac kuleel dhowr xabo waxaa jirkiisa ku siyaadi doonta sokor fara badan oo ka dhalatay isku darka labadan shay ee kala duwan waxaana laga digayaa qofka qaba cudurka macaanka inuusan iskugu dhawaanin sidoo kale jirkaaga waxaa ku siyaadi doonta waxa loo yaqaano caffeine oo ah maado qaabilsan in qofka markii uu cabo uu dareemo nashaad hoosna u dhigta hurdada balse haddii jirkaaga ku badato overconsumption waxaa ka dhalan kara dhibaatooyinka soo socda sida garaaca wadnaha oo siyaada taasoo aakhirka kugu sababi karta wadnahaaga oo istaaga dheefshiidka cuntada oo dhibaato soo gaarta hurdo la'aan habeenkii iyo neerfayaasha maskaxdaada oo waxyeelo ay soo gaarto taasoo aakhirkii kugu sababi karta in aad waalatid sidoo kale jirkaaga waxaa soo gelaya maadooyin qof ku sababi kara riixaayo ama xasaasiyad ayadoo ugu wacan tahay isku milka maadooyinkan sidoo kale labadan saliid ee ku jira nacnac kuleelka oo ah maadooyin fudud oo meeshii lagu daro ka soo saaraya falgal aan wanaagsanayn oo aakhirkii ku biyo shubta xasaasiyad maqaarka iyo midda dhuunta qofkii uu daawo u socotay haddii uu qaato waxay ku sababi kartaa in cudurkii uu la tacaalayay uu u siyaado ama daawooyinkii uu qaadanayay qofkaasi aysan waxba u tarin maadaama falkalkii ka dhashay waxa cabista uu burburinayo tayadii daawada waxaa sidoo kale wajihi kartaa gaaska caadiga ah iyo gaas calooleed ku dhaca mindhiciraha iyo amateedka oo ka yaraada iyo wixii lamid ah fadlan iska ilaaliya halista caafimaad ee ka dhalan karta isku qaska labadan shay ee aan horey usoo sheegay dabcan qofkii hal mar isticmaalay waxay u badan tahay inaysan waxyeelo ku sababin laakiin haddii aad la qabatinto ama aad dhowr mar isticmaasho waxaa laga yaabaa in caafimaadkaaga uu halis ku noqdo waalidiintu waa inay ilaaliyaan carruurta aan aqaan gaarin sababta waxay kaga nugul yihiin marka loo eego dadka waaweyn haddii aad halkan soo gaarto aad ayaan kaaga mahad celinayaa daawashada muuqaalkan aad daawatay waxaana kaa codsanayaa inaad muuqaalkan like saartid asxaabtaadana aad la wadaagtid si uu muuqaalka meel dheer u gaaro taasoo sababi karta in qof isku dayay ama rabay inuu cabo cabitaanka baawarka iyo nacnaca uu iska joojin doono